yahay leedahay waa wax kastoo xaq ugu leeyahay kow ka tahay nafteedu marka uu meheriyo ee meherku ku dhaco ee uu aqbalo xilkii aabaheed uu ka wareegayo hooyadeed isagu ku wareegay hadduu dhaahdo inakeen guri xaggaasaan ku geynaya wadan xaggaas baynu tegaynaa waa yahay bay leedahay alaabta shadadeeda ay soo qaadanayso ku dhuuqanaa kale ma keenayso ma odhanayso waxaasi ma jiro cudurdaar ma xagga sharciga aabiyo hooyo xilkii uu ka wareegay markaa isaga ayaa wixii aan sharcigu diiday meeshuu geynaya hadday wadan gaala tahay dee sax maha taas oo diinteeda ay wax ku noqonayso laakiin meel islaam hadduu geynayo ama aan dee dhaqan iyo diin midna waxba ku noqonayn iyo meeshuu dejinaya isaga u taalla inay tidhaahdo maaha magaaladaa ma degada anugu magaaladaa reerkayga ma yaallo magaaladaa ma yaallo anigu ma tegayo sax maaha reerka isagaa ka taliya way raacaysa taasi waa qadiyadda daacada nafteeda hadduu ka doono mucaamaladii xaasnimo iyo galmadii waa inay ogolaataa haddii aanu maanic sharci jirin haddii aanu dee wax ka hor joogsanaya aanu jirin maalan hadday xanuunsanayso dee way u sheegi waanay kari karayn haddaanay daahir ahayn way u sheegi hadday cibaado ku jirto xaj iyo soom waajiba way u sheegi wakhtiyadaasoo kale ma qasbi karo ama inuu codsigaa soo jeediye maaha wax cudurdaari haddii aanu jirin galmadii ma diidi karayso hadday diiddana malaa'igtu inay u cadhaysan tahay ayaa uu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam sida uu tilmaamaya xadiidkii bukhaari ku sugnaa waxyaaba ay ku adeecaysa xaasku ninka waxaa ka mid ah bixitaanka haddii gurigii cid imanayso waa inuu la socdaa ninkuyo u ogaadaa yaa oo waxay leedahay maanta waxay noo imanayaa reer hebel qoyskii hebel hebel qoyskiisi baa inoo imanaya ama heblaaya imanaysa waa asxaabtii waa aqaaribtii waa dadkii ay dacwadda wadeen cid kasta ha ahaata guriga taliyihiisu iyo cidda laga amar qaatay ilaa meel madaxtooyaha madaxweynaha maamulo markaa iyaduna dee mas-uul bay uga tahay saa daraaddeed waa inay u sheegto waxaa la diidaya inay isku dhacaan waanay dhacdaa dee innaga dabeecadaheenna inay gabadhu markaa dad badan keento ama gurigii qaar seexda ama obreeshano iyo waxyaaba ka fuliya oo markaa kulamo lagu sameeyo ama la isweydaarto ama la buuqo dabeedna uu u yar dulqaato haddana u yar dulqaato marka dambe uu ku qarxo odhaa meesha ma gurigaygiiba mise dad kalaa leh markaasaa reerkii isku dhacaya taasaa la diidaya markaa kolka guriga cidi imanayso ha u fasaxda buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ninka gabadha xalaalu maaha dee inay gurigii cid aanay ogeysiinin ay soo geliso ama uu isaguba karaahaysanaya ninkaa isagaa waxyaabuu ninku xaq ugu leeyahy waxaa ka mid ah inaanay soomin ama xaj la imanin haddii aanu ninku fasaxin hadday iska jibbooto ay tidhaa bishanba waa soomayaa soom sunno ah uhaa inagadaa soomka ah aniga hawlahaygana wuu kala tuurayaa shaqadana wuu kaa daciifinayaa caanaha ciyaalkuna way gurayaan ka jooji soonkaa inagadaa ay tidhaahdo maya waa cibaado ilaahay oo kuu joojin maayo way qaldantay waayo cibaadaduna waa sunne xaqa ninkuna waa waajibkaa ka horeeya mar walba sunnaha marka isaga laftiisuna dee hadday xaaskiisu diintii ilaahay uu jeclaysiiyo qof wanaagsanayta waa inuu ku saacidaa way fiicanta laakiin hadduu taa garanba waayo oo dan uu u arki waayo inay iska cidhiidhsato maaha waaya waxaa runtii waxyaabaha ay kaga amar qaadanaysa ka mid ah inaanay bixin oo socodku hawl buu leeyahy ninkana dabaddaa lagu ogyahay wuu shaqo tegayaa barafkuu marayaa bacadkuu marayaa dabayshuu marayaa dhaqaalaa loo diroo layidhi soo dhididoo keen wixii la cuni lahaa lagu raaxaysan lahaa lagu noolaan lahaa baa loo diray qof dhaqaalo loo diray arrin sahlan maaha iyadana gurigii ciyaalkaa loo diray gurigii ciyaalkuna wax sahlan maaha ninkuba ma kari karaba hawsha ah marka carruurta rabaayadoodii korintoodii waxbaridoodii
ilaalintoodii arrimahaasaa loo diray marka hadday baxayso oy meel tegayso walow diinba ha ahaato muxaadaraba ha ahaato cashar la dhigta ha ahaato dacwaday faafinaysa ha ahaatee waa inu ogolaadaa hadduu idhaahdo anigu casharkaa anagaa ninkuugu yeedhaya guriga ka joog muxaadaradaa ha tegina iska joog wacdigaa ha tegina iska joog xajkaa sunnaha iyo cumradaa iska joog magaaladaa ha u bixin waa yahay wey amarkiisu waa waajib cibaadadana waa sunne arrimahan oo dhan waa sunna aynu ka hadlaynaa faralkii gaar baynu uga soo hadalnay bal haddee agata inta la isku qabsadaba inta mushkiladeenna u badaniba waxay ka taagan tahay aroos la tago soo maaha dumarow arooskii intay isqurxisay dahabkii isku taagtay iyo nakuushee dhag isku siiso ayaa arooskii u baxaysa 12 habeennimo ama 4 habeennimo iyadoo ka tuuraysana waa imanaysa isagiina halkan uu rafanaya wax soo dhaweeyana ma hayo xaaskiisii u baahnaa ma hayo ciyaalkii halkan ay ka qaylinayaan dad kalena way isxambaar dad kalena way u shaqaynaysa isagiina halkan maba ogolaaninba yaa ku yidhi heblaayo wakhtiga soco war miyaanan ikhtiyaar lahayn dee halkaasaabay ka bilaabaysaa buuto wareed dagaal baaba bilaabmayba ma rabno qoysku inuu inaga burburo ma doonayno qoysku tartiibtaasuu kala leeyahay waxay leedahay arooskaasaa jira walaala arooskiisii weeye walaashay weeye in adeerkay weeye in abtiday weeye ehelka weeye asxaabta weeye hebelow ma baxaa oo ma tagaa yaa markaa hadduu idhaahdo haa waad bixi kartaa wakhtigaa soo noqo anaa carruurta kugu sii simi ama ciddaasi ha sii hayso ammaanadii ciddaa kusii ogow sax weeye hadduu debadda joogo telefoon bay u diraysa hadduu debadda joogo meeshii maaha nin qaba inay arrintu noqoto laba nin meeshii inay wada joogaan maaha waa nin iyo xaaskiisa ayaa loo baahan yahay arrintaasina aad bay muhiim u tahayoo isagoo dhintay baanay xataa baxayn isagoo ifka iska jooga daayo arrimuhu see u adag yihiin dumarow wuu dhintoo wuu allaysto aakhiruu tegayba gurigii uu kaga tegayay ka bixin baa layay ilaa intay cadad baxayso oo ciddadeedu dhammaanayso ilaa intay ciddadeedu dhammaanayso asayda dhigaysa asayda sooma taqaaniin baasha la yidhaha hengefta ilaa intay dhigayso iyo gurigii ka bixin ma safrayso meelo fogfog ma tegayso gurigaasay fadhiyaysa laa tukhrijuuhunna min buyuutihina walaa yakhrujna ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina waa suurad qur-aanka suuratu dalaaq bilowgeeda wey iyaguna ayay guryaha ka bixin idinkuna ha saarina dadka ehelka ahow marka la furo iyo marka laga dhinto labadaba ilaa intay cadad baxayso sharcigu wuxuu qur-aanka ilaahay uu ku sheegay inuu ninkii iyo xaaskii marka ay khilaaf dhex maro in xal la raadiyo oo aan waxaan furiinka la yidhahdo lagu degdegin dumarow mar alle markay xaasku cadhooto waxay la soo taagan tahay ifur haddii lagu furo maxaad ka faa'iidi ubad baad weyday aqal baad weyday odaygii baad weyday bannaan baad shaydaanka ugu baxday kuwii kugu wiirsan lahaa ee kugu qosqosli lahaa iyo shaydaankiiba bannaankaasaad ugu baxday docda reerkiinnuna ku qaadi mayso aqalka reerkiinnu gabadh la soo furay ma qaado way ka weynto way cuslaatay imaka tii yarayda boodboodaysa maahee waa gabadh culus oo weyn marka adigoo isxambaar ahoo ciyaal wata aqalka reerkiinnu ku qaadi maayo kaaga ku lexa jeclow hooyooyinkeennii horee wanaagsanaa marka la yidhaha waa lagu furayaa aqalka udub xooggiisay qabsan jireen halkaa dhexoo waxay odhan jireen lay furi maayo halkaasay xejisan jireen sax bay ahaayeen waxay ku lex jeclaabaysaa guriga suuratu qad samci bilowgeeda akhri suuratu qad samic bilowgeeda akhri waa naag ninkeedii ka dihaartamay sidii berigii hore wax loo furi jiray buu wuu furay berigii hore wixii furitaanka loo yaqaanay nebigee u soo ashkatootay waxay leedahay carruur baan u hayaa cimrigaygiina waa weynaaday meel aanu ku kala tagno ma hayno bal qiil eeg dee anuu qiilkuma hayo wax alla waxaan isugu soo kiin celiyo ma hayo halkaasee ka cataawday halkaasee ka calaamcashay hadalkiibay nebiga ku celcelisay way ka dhaqaajiwada reerkeeday jeceshay faraj buu ilaahay keenay suuraddaa qad samci baa lagu soo dejiyey qaybteeda hore ah ilaahay uu markaa hadalkeedii maqlay subxaanahu wa tacaala qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtakii ila allah wallahu yasmacu taxaawurakuma ina allaha samiicun basiir ilaahay wuxuu maqlayaa oorida ama xaaska kula doodaysa nebi maxamedow iyadoo ninkeedii ka cabanaysa hadalkiina nebiga way ku celcelinaysaa calayhi salaatu wasalaam
وتشتكي إلى الله إلهي بيو عبريس غير كذا بربرة يكحنت ساسا لو بهين ونينكو وقول حاسكون يقولي كذا كل حد على وذوي ثم رواينا وقاتان نينكو ينار قولي كذا كلا هاي قولي رجوا ذي كمالها قولي ولا وذلي ما الله وذلها قولي ولا وذلي إن النعس سودا ما إن عكت لوك الله قول اشتماه ماشي هكذا ليه وأعرف فرسمه حاجة ما ملكها لكن قولي قاتنا ولا يستوي لي وحلا يدعى لبضان قف ويسكور سدين صوما ويسكور سدين معناه هذا واضح ينا ويسوقور تيسنو سوقوري مال بحي سوي ماده marka sidoo aqalka u leeyahay baad u leedahay haduu ku raado reerka iskaga tag adaa iskaga tagay baad leedahay ma tagay markaas ay dabeetana arinku biyo dhigaya la isfahmaya xaga reerkayga uga taga reerkayga carruurtayda waan joogaa wixii qaladana waan deynaya aduna wixii qalada daa haday dhacdo hadaba in labada qof ay isafgaran waayaan oo waliba qaladka iyadoo ay leedahay waaninaya oo markay gafka iyadoo leedahay waaninaya xaaskiis koow deewaanada aqbali weydana sida quraanka ilaahay uu ku cadeeyay gogashu uga durkaya meel gaar u seexanaya haday intaas aan fici guriga kama tagayo guriga inuu ka tagaa waa dudmada lama ogola meel buu seexanaya gaara nooc mudaharaada weey iyadana wax la doonaya inay soo dhaweysay tiraa bal dul qaado geefka waan iska daayay ilaa waxba lama madaxadeeyeen haday taasi dhici weydana quraanku wuxuu fasaxay in la edbin karo oorida oo waxaan dhib ku ahayn lagu dhufan karo hadii faa'iido ka soo kordhayso arintaasina quraanka ilaahay uu ku cadeeyay wax quraanku uu sheegayna in la xaaraantinimeeyo oo la diido waa qalad oo la yiraahdo arintaasi sax maaha macna quraanku kol haduu sheegay waa la ogolaado facala raasi wal ayn dumarkii waa wanaagsanaa salafiyaadka mid ka mid ah baa waxay lahayd war waxa jirta diinteena iyo quraankeena meel ayna ku amal falin hebelow waa maxay de waxa weey labada qof markay murmaan sawtii la yiri ninku gabadha edbiye maalina imaad edbinina waxba iguma dhufanine diinta ku amal falo raac almuhim waxaynu leenahay waxa soo dhab wax xuquuq meesha taala oo labadoodaba midba kale uu ku leeyahay xuquuqda labadooda ka dhaxaysa waxa kamid ah inuu midba kale ehelkiisa xiriiriyo adigu haddaad tahay xaaskii ehelkaagii ehel kala kugu soo kordhay aabba kalaad yeelatay hooyo kalaad yeelatay walaalo kalaad yeelato waa inta ninka xaqiisa ka soo jeeda isagana ehel kala u soo kordhayo waa ehelkaagu isaga wuxuu u yahay ehel sidoo isagu ehel u leeyahay marka labadiina mid wala ka midayba waa laba tol leh adiguna laba tol baad leedahay isaguna laba tol buu leeyahay sida daraadeed waa inuu midba kale ehelkiisa xiriiriya adigu ehelkiisa xiriiraysa wixii sharcigu ku ogolay baad u qabanaysaa ka diiqadoon maysid eriyana maysid isaguna waa inuu ehelkaaga sidaas oo kale soo dhaweeya aabbaha hooyada walaalaha wixii loo qaban karo ee arina ee dhaqaala waa in la siiyo adiguna saas oo kale aad sameynaysa nolosha